xafladan oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayna isugu yimaadeen qaybaha bulshada magaalada Jijjiga ee caasimadda deegaanka Soomaalida sida hogaaminta dhaqanka waxgaradka dhalinyarada iyo dumarka ayaa ahayd mid taageero loogu muujinayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha uu soo magacaabay Mudane Xamse Cabdi Barre. munaasabadan oo ka qabsoontay madasha kulamada qaryaandhoodan ee magaalada Jijjiga ayaa lagu bilaabay ayado qur'aan ah inta ay socotayna waxay salaadiintii iyo qaybihii kale ee bulshada ee ka soo qayb galay ka soo jeediyeen hadallo mahadcelin iyo ducaa ah oo ay hawada u marinayeen madaxda qaranka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Prime Ministerka uu doortay isagoo aqoon dheeraad u leh waxaan ku salaamayaa Soomaaliyeed ay joogtaba assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. salaan ka bacdi waa arrin aad iyo aad loogu farxo taariikhdana galaysa Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse Cabdi Barre oo halkan lagu soo dhaweynhayo taswiirtoodiina ay saaran tahay korka waa arrin taariikhda galaysa waana wax aad iyo aad loogu farxo. taa waxaan idin raacinayaa waxaan ilaahay u baryaynaa ilaahay baa wax qabta ilaahay baa wax gooya ilaahay baa wax kara in ilaahay qaadir raxmaanu ee madaxdaas ilaahay uu qabto wixii ay jecel yihiin ee fiican. waxaan aad iyo aad farxad weyn oo ah caawa arrintan aynu qabanay oo ah mid taariikhda galaysa ilaahay qaadir raxmaana ayaa inagu amray inaynu sidan yeelno. aniga habeenkan waa habeen taariikhi buu ii yahay waana habeenkii ugu horeeyay ee madax Soomaaliyeed iyo ra'iisul wasaare Soomaaliyeed iyo madaxweyne Soomaaliyeed laga xusay Jigjiga waa taariikh isugaysay ina riyoonayaad moodaa hadda aad iyo aad baan idinkana idin salaamayaa. waxaa la yidhi Soomaalidu meel kasta ay joogto waa isku mid ka Jilib jooga ka Jamaama jooga ka Jabuuti jooga ka Jigjiga jooga iyo ka Jikaakadii Mareykanka ka imi jooga waa isku mid weeyaan. taariikh badan baa caawa halkan ka dhacay waxa ka dhacay in calankii Soomaalida Jigjiga saas loogu hayo waxa ka dhacay in madaxweynayaasheenii iyo ra'iisul wasaarayaasheenii halkan looga xafladeynayo waxa weeyaan taariikh cajiib weeyaan. waxaan u hambaliyeynayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa kale oo hambaliyeynayaa ra'iisul wasaaraha uu xushay Mudane Dr. Xamse Cabdi Barre. waxaan leeyahay xilka aad qaadeen iyo mas'uuliyadda aad qaadeen kuwii ilaahay uu ku asturo oo ku guuleysta Allah idinka dhigo. waxaan xukuumadda cusubna ka codsanaynaa inay xiriirka dadka Soomaaliyeed ee dariska ah ay la tahay iyo dawladaha dariska ah iyo nabadgelyada ay adkeeyaan oo ay ilaaliyaan wadajirka iyo nabadgelyada iyo xasiloonida geeska Afrika inay ilaaliyaan xukuumadda cusub ayaan ka codsanaynaa. waxa kale oo u hambaliyeynaynaa shacabka Soomaaliyeed ee xukuumadda cusub yeeshayna waa u hambaliyeynaynaa iyagana kuwii la shaqeeyo xukuumadooda oo wax la qabta Allah ka dhigan leenahay. markhaati waxaynu ka wadanahay dhammaanteen inaynu halkan oo Jigjiga oo deegaanka Soomaalida aynu uga xafladeynayno madax Soomaaliyeed oo Muqdisho laga magacaabay. marka dhammaanteen farxad bay noo tahay. madaxweyne Xasan oo waad mahadsantahay hambalyo. Xamse waxaan ku leenahay hambalyo. Xamsena hal midun baan doonayaa inaan idhaa. Xamsow cadaalad aanu kaaga martinahay Soomaaliya cadaalad u samee aad iyo aadna waad u mahadsantihiin hambalyo. waxaan u mahadnaqayaa ilaahay qafuur raxiim ah oo casiisaha oo caawa Jigjiga aynu Muqdisho uga dabaaldegayno ayadoo qof Soomaaliya
وشار عقبة حمر بوكاي من نور جرو الحجري أنت ناس الصومالية وعدنا وين ساين سجرين إن نود بالدقة إنه مقدسه مدحوينه يرث الوزاري إلهي ما إلهي سامح تاسكنا الحمد لله رب العالمين وحرم ما نجيا أمة الصومالية وأفك الصومالية كل هذا الشهر ملا أي شوغان با وحن رجينا يا عاوة تشتغل وحكى صودا قفل بابا يرد داونيو وفرح سيهاي هم سوى رئيس الوزراء الصوماليين ووتك الصومالي عنك واللي يقان وحروهم بليين إن مجا دولة دجانك الصومالي ده دولة الصومالية ما أنت لقد سي وحروهم بليين إنه وحنا كسبنا ولا تنمو يحرير أن قوة ولا ندرس نمو أيان كسبنا waxaan balyeeynaa oo si kalsooni ku dheexan aan ugu hambalyeeynaa ra'iisul wasaaraha Hamza Barre oo doortay arkayna wanaagiisa iyo cadaaladiisa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh isagana waan ugu mahadinaynaa sida weyn oo ummadda Soomaaliyeedna ugu wada faraxday waxaan leenahay hambalyo waxaan leenahay annaga waxaan idinka doonaynaa inaad nabadgelyada aad kala shaqaysaan Itoobiya iyo Soomaaliya wadajir inay ahaadaan oo nabadda ay ka wada shaqeeyaan oo aad ka shaqaysaan dawladaha dariska ah iyo dawladaha aan Afrikaanta ah inay nabadooda aad ka shaqaysaan ayaan aad iyo aad idinka rajaynaynaa insha Allah kooxaha fanka iyo suugaanta deegaanka Soomaalida ayaa iyaguna munaasabadan intay socotay kaga qayb qaatay dhaanto dhaqameed iyo heeso kala duwan kuwaasoo ay taageero ballaaran ugu muujinayaan madaxda qaranka Soomaaliya Salam